السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا دمان سحبته بروجرام كان عادك وقيمة بدن فرصة بين عادك خالق وكسر هذا وقارين مجيء قاعدين نكون بالحدية نكون بالعبوة عيسى عبد الكريم شاعية وحنا هاي حبين كم إذا كمري كان ماتن مرتدين وقتهاي وحاسو كلا هاي ماستر إن هيلث مانجمنت إن بدن من كسر شقية macalin heer jaamacadeeda hadeertaan laakiin waxaan focuskeygiiyo xooggeega saaray sida aan bulshadeeda u dhisi lahaa aan ula wadaagi lahaa waxyaabo badan iyaga dal u ah kana faa'iidi doonaan noloshoodana wax badan ka bedeli doona insha allahu tacaala. haddaba kusoo dhawaada fursad business halka kan waxaa waaye waa fursad ganacsi oo qofku u awoodo inuu horumariyo insha Allah taala diyaar baan ku lahay sida uu horumari lahayd fursadatan waxaynu saarka doonaa fursadatan iyo habka uu shaqeynayso insha Allah taala waxaan ka rajeynayaa inaad si wacan ama degan aad u dhageysan doonto then markaad dhageysatay kadib ayaan waxaa ila wadaagi doontaa wixii aad ka faa'iiday fursadatan waxaan rabaa marka insha Allah taala inaad meel buuq aan lahayn tagto si degan u dhageysato wuxuu socdaa waqti aad u kooban aan ka badnayn 15 daqiiqo ka yar ah ayuu noo socdaa insha Allah taala waxaan rajeynayaa insha Allah taala wax badan ka faa'iidi doono. Okay, su'aasha ugu horreysay waxaa weeye understand this is a business. fursadda maanta lagu soo cusubay oo fursad ganacsigaas ah qofkii isaga inuu dhisto. Okay, intaan u guda gelin habkan u dhisan lahayn iyo shuruudaha laga doonayo waxaynu saarka doonaa insha Allah taala habka ay dadku lacag u sameeyaan inaad dhaqaale ay ku soo gasho afar hab ay ku xiran tahay ama afar si ay kugu soo gali karaan dhaqaale. Number 1 inaad shaqaale aad noqoto employee inaad noqoto dhaqaale waad ku sameyn kartaa lacag kugu soo galaysa. sidoo kale dhaqaale wuxuu kugu soo galayaa self employee inaad noqoto adigu inaad shaqaaleysiiso meherad yar inaad furato tusaale ahaan. labadan qolo waa laba qolo waqtigoodii bay bixinayaan iyo aqoontii iyo lacagay bay bixinayaan waxayna ku bedelinayaan lacag saas la mid ninka kan qof boos uma aha laakiin isaga shaqaaleysiin dukaanka yaray iyo meherad yar ma xiri karo hadduu xirada lacag ma imaanayso sadarta wuxuu ku qasban yahay inuu dukaanka furo isagana waxa waqtigiisa ay lacag ku bedesho boqolkiiba 95 dadka dunida labadan qaybood way ama waa shaqaalayaal ama waa meherad layaal dhaqaalaha sameeyeen dunida marka loo fiirino waa boqolkiiba 5. haddaba waxaynu doonaynaa inaan ka soo kixino bulshada halka kan aynu keenno halkan nidaamka kan waa business owner dad ganacsi weyn leh business owner marka la yiraahdo waxa uu business ay ka shaqaysan leedahay 500 qofood u geeraan 500 qofood u geeraan business ka shaqaysan markaad haysato ayaa waxaa tahay business owner qofka noocan ah waxa uu owner system ayuu leeyahay dad ayaa u shaqeeya isaga aad badan ayaa u shaqeeya halka qofkan kale uu yahay investor maalgashaday dhaqaalihiisa ayaa dhaqaale isagu dhalo saalaan kala degad baa la dhisay kula maal wax buu ku darsaday qofka noocaana isagana waa investor waa maalgashaday dhaqaalihiisa ayaa dhaqaale u dhalayo noqonaya qofka noocaana ama groupka kan boqolkiiba 5 ay bulshada ka yihiin laakiin dhaqaalaha sameeyaan waa boqolkiiba 95. haddaba insha Allah taala fursadda maanta idin hayo oo fursad ku suura gelinaysa inaad business owner noqoto si samadigu aan leedahay inaad dhisato waa leedmo waxaan ugu geli doonaa fursadatan iyo habkaad uga faa'iideysan lahayd fadlan si degan ula soco videoga xiga ayaan isku arki doonaa fursadatan iyo habka kaga faa'iideysan lahayd insha Allah. bismillah isku soo noqod wanaagsan haddii videogan aad ka bilowday videoga ka horeeyay ee dhowrka daqiiqo soconaya soo daabo si aad u ogaato waxa meeshan lagu hayaa ama looga hadli doono insha Allah taala. haddii aad soo daabatay aad baa u mahadsan tahay videoga labaad ayaan bilaaban doonaa oo ka hadli doona shaqada tan habka loo qaban lahaa. ugu horeyn kambaniga martida u tahay maanta waa kambani loo yaqaano magaciisa la yiraahdo TNS. TNS wuxuu ku shaqeeyaa nidaamka tooska ama wax loo yaqaano network marketing ayuu ku shaqeeyaa wuxuuna ku hayaa wax loo yaqaano ama ah fursad faa'iido wadaag profit sharing opportunity faa'iido wadaag halkan qofku wuxuu ka yahay share wuxuu shaqaystay ayuu wax ku leeyahay qofku markii la dhahana marka waxa shaqaysataa wax ku leedahay
way ka macno weyda wayna ka faa'iido badan tahay in la dhaho intaasaa qaadanaysaa wax allaala waxaa qabato way ka macno weyda wayna ka faa'iido badan tahay waxaynu isla arki doonaa su-aal buu ka berigana weydiinaya su-aashaas oo ah what are the top problems of life maxay tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn dadka dunida maanta haysta maxay tahay isweydii dhibaatada ugu waaweyn dunida maanta dadka haysta maxay tahay waxaa ugu waaweyn uu kamida kusoo koobay unemployment shaqo la-aan dadku waxay ka cabanayaan shaqo la-aan waxbay soo barteen waqti bay geliyeen noloshooda maca daalika shaqo la-aan baa jirta haddaba shaqada halkee bay aadee shaqadu marwalba technologyga sare u kaco shaqooyin badan baa khad ka baxaya waxaa jireen shaqooyin badan aynu garanayna laakiin maanta aysan jirin tusaale ahaan oo kale dekedaha waaweyn dunida awal kor waxaa ka shaqayn jira dad caadi baa ka shaqayn jiray ee gararata ahaa ee xoogsata ahaa hadeertan wiishashun baa ka shaqeeya meeshay ka shaqayn jirta 2,000 oo qof waxaaba ku filan ba 4 qofood baa ku filan tusaale ahaan kale hadee tusaale kala soo qaadano mashiinka la yirahdo ATM mashiin la yirahdo ee lagula baxa kaararka bangiyada oo qofka lacagtu ku jirto kaarkiisa kula bixi karo ATM mashiinkaas wuxuu bedelay baa la dhahaa 20 qofood oo cashier noqon lahayd oo kambaniga u shaqayn lahayd ee dhaqaale joogta iyo mushaar joogta ka qaadan lahaa maxaa kaga filan hal ATM mashiin la soo gataan marka marwalba technologyga casri noqdo shaqooyin badan baa khad ka baxa su-aasha labaad ama qodobka labaad ee keena ama problemka dunida ka mid ah waxaa ku farta faqri qofka shaqalaan hadee dhacdo dee burbur dhaqaale iyo dhibaato dhaqaale way dhacaysaa qodobka ugu dambeeyana xanuuno ay dadku ka cabanayaanoo dadku intooda badan waxay ka cabanayaan xanuuno krooniga ama xanuunada raaga ah iyo xanuuno caadi iskala socdaanba haddaba kambaniga kan intan baxal buu u hayaa maanta waxaa jaanis haysataa fursad aad ugu abuuri karto adiga bulshadaada inay shaqo ay helaan number 1 iyo inay xanuuno badan oo halis ay ka daboobaan ilaa baa dawada hayee laakiin xanuuno badan ee dad badan oo Soomaaliyeed ay ka daboobeen inay ka daboobaan insha Allah taala su'aal kale ku weydiinaya kambanigu wuxuu ku leeyahay what is your dream lifestyle maxay tahay hamiga noloshaada maxay tahay halkee baad doonaysaa noloshaada inaad tagto 3 sano hadda kadib meel shaqo qof uu ka doonanayo weligii la weydiiyey ma jirto nolosha maxaa jeceshahay hamiga waxaasla ma jirto waxaa la dhahay qofku leeyahay xaasaasaa noo qabo keliya nolosha noocaasa ayaynu doonayna bulshadana ka saar nolol xorriyad baynu doonayna inaynu bulshada gelin insha Allah tacaala haddii aad diyaar u tahana waad ku guuleysan doontaa insha Allah halka waxaa lagu weydiinayaa maxay tahay hamiga nololeed aad leedahay waxaad doonaysaa adii familkaaga dunida inaad dalxiis tagtaan waxaad doonaysaa abaalmarinada kambaniga laga guuleysto gawaarida dalxiiska laga guuleystana kaga guuleysato waxaad doonaysaa xajka inaad aado waxaad doonaysaa masaakiinta inaad caawiso waxaad doonaysaa guriga leedahay adow inaad iibsato haddii jawaabtaada waxa ay tahay kambaniga uu kuu suuragelinayaa haddii dadaalkeeda aad la timaado waad heli doontaa insha Allah tacaala anigana waxaa diyaar ku lahay habka aad ku gaari lahayd adwaaleyno waxaynu isla arki doonaa insha Allah tacaala qodobkeena xiriir kambaniga kan waa xarunta ugu weyn ee kambaniga waxay ku taallaa dalka China ayay ku taallaa waxay xarumo weyn ku leedahay in ka badan 110 wadan bay xarumo weyn dunida ku leedahay sidoo kale waxay ku leedahay xarumo yaryar in ka badan 190 wadan waxaa consumer group ama customer ah in ka badan 40 milyan sidoo kale kaalinta 11aad ay ku jirtaa shirkadda iibka tooska laakiin xaaliyan waxay ku jirtaa kaalinta 3aad bay ku jirtaa sidoo kale waxay haddii qofkii faahfaahin dheeri doonaya xada dunida been iskuma sheegi karo qofkii faahfaahin dheeriya doonaya dee website-kan buu kala xiriiri karaa sidoo kale hadduu ku qoro google-ka hadduu ku qoro tens wax badan xog ayuu helayaa sanadkii iib gaaraya 1.6 bilyan iyo kambaniga kan sameeya waayahay xogtan 2019 ayay ahayd hadeertaan kaalinta 3aad ayuu ku jiraa customer group-kana aad buu badan yahay waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso maxay tahay kambaniga waxa ka qabanayo ama aan kula noqonayo sheerka maxay tahay ugu horeyn waxaynu isweydiinaynaa maxay u baahan tahay inaan qabano ganacsi maxay nooga baahan yahay tusaale ahaan waxaa laga yaabaa carwo aan rabnaa inaan furno carwo inaad furto maxay kaaga baahan tahay ugu horeyn alaabta inaad heysay kaaga baahan tahay maxay kaloo kaaga baahan tahay meesha ku iibin lahayd dukaankii oo meel fiyaala ah oo suuqa ku yaala inaan furno waxay kaloo kaaga baahan tahay in
walba qiimaheedii pricekeedii inaad jaangooso saddexda markaad hesho waa inaad heshaa dad kaa iibsadana waa inaad heshaa haddii aadan intaan 4 shay aysan dhicin wax lacag aynu sameynayno ma jirto haddaba kameriga muxuu ina leeyahay kameriga wuxuu ina leeyahay 4 shay 3 shay aniga ayaa kaa kafaalo qaaday adigu hal mid bas shari ula noqo alaabta liibin lahaa aniga ahaya alaab high quality ah xanuuno badan oo halis looga caafimaado sidaan sheegnay sidoo kale videos badan aynu heno sokor dhiigkar baabasiir macaan xanuuno badan aad iyo aad bulshada u dhibaateynaya in xalkooda la gaaro insha allahu tacaala maxaa yeelay waxaan daaweyn dunida ma jiro sidoo kalena meeshii lagu iibin lahaana kameriga isaga ayaa diyaariyay oo xarumo weynayo gobolada soomaaliya dalka wada furan qofkii meel aysan xarunta ku olin joogana si waa loo deliver garayaa waa loo dhiibaa si markaa meeshuu doono marka uu qofkii soo dalbadana waa inuu deliver garaa si uu ugu gudbiyo isagana sidoo kale pricekii qiimihii waxaan jaangooyey kameriga jaangooye oo qiimaha walba kameriga ayaa saaray adigu waxaa lagaa doonaya keliya bulshadaada inaad la wadaagto kii caafimaadka doonaya isdaweeyo kii dhaqaalaha doonaya inuu shaqaysto kadibna markuu intaa shaqada noocaas loo igno qofku markuu qabto in kamerigu ku siiyo maxay commission inuu ku siiyo amaba lacag loo yaqaano commission amaba wuxuu ku shaqeynaya qofka percentage-kii uu lahaa buu ku shaqeynaya percentage-ka muxuu yahay waynu soo arki doonaa insha allah waaya haddii aad tiraahdo waxa kan waa waxaan qaban karo inaan bulshada u soo bandhigo caafimaadkooda iyo dhaqaale inay sameeyo waxaan awoodo see baan ku bilaabi karaa see baan kaga mid noqon karaa xibin waxaa hore lagaa doonaya haddii aad doonayso xibin inaad ka noqoto number 1 inaad isdiiwaangeliso isdiiwaangelintu maxay tahay isdiiwaangelintu meel bay ka jirtaa jaamacaday ka jirtaa iskuuladay ka jirtaa inay baris dunida maanta jiro isdiiwaangeli ma jirto xataa dugsiyada qur-aanka ayay isdiiwaangelintu ka jirtaa fariisin baa loo yaqaana waayahay haddaan isdiiwaangeliyo maxaan helayaa laba shay muhiim baan helayaa ugu hore waxaan helayaa free office xafiiskii free ah meel haddii aan joogo xarunta meel ay ku taalo xafiiska free ku yahay xafiis dunida lagu furso doolare ma jirto number 2 waxaan helayaa free training tababar free ah oo tababaradaas qofku qaadanayna waa tababar IQ-giisa aqliyadiisa bedelaya xaqiiqatan tababarada lagu qaato xataa jaamacadaha way ka duwan yihiin sababta ay tahay jaamacadaha qofku waxaa loo training garayaa sida uu ku noqon lahaa shaqaale wanaagsan halka kalena waxaa lagu training garanayaa sidaa ku noqon lahayd hal abuuro wanaagsan wayna kala duwan tahay qof loo training garanayo suu ku noqon lahaa shaqaale wanaagsan iyo qof loo training garanayo suu ku noqon lahaa hal abuuro wanaagsan qodobka labaad waxaa lagaa doonayaa ID ama xirmo kamid ah kameriga inaad dhisto oo ID baa kameriga laga iibsadaa ID-gan waxaa lagu iibsadaa xirmo kamid ah xirmooyinka kameriga inaynu sameyno ama iibsano waayo xirmooyinka unu soo arki doonaa insha allah kadibna aan la wadaago dadkii ugu xeendaaban asxaabteyda ehelkaygana la wadaago aan kula wadaago physical weji ka weji amaba aan kula wadaago asxaabta kale online aan kula wadaago sida adiga aan kula wadaagayo kale qodobka afraadna waxaa weeye in aan tababaro dadkii aan la wadaagay inaan tababaro aan siiyo maadaama ay ugu soo biireen ee doonayaan noloshooda wax badan inay ka bedelaan inay qaataan tababaro si iyagana ay u noqon lahayd dad madax banaan horan ugu socda وايه waxaan isla arki doonaa insha Allah taala xirmooyinka kameriga laga iibsado xirmada kood waxa loo yaqaan bronze waxa lagu iibsadaa $110 alaab joogta iibso dan xirmadaas ayaa galaysaa oo micneedu maaha $110 cadaan bixi maaha oo cash bixi ID card ba qaadanaysaa ma $110 alaab ku iibso darajadan kameriga ayaa ku siinaya ama bronze ayaa taa kameriga ku leeyahay bronze hadii aan maxaa faa'iideeyo waxaan faa'iideeyaa kameriga percentage waxaan ku yeelanayaa 10% oo $100 kasta aan iibiyo $10 ayaan ku leeyahay waynu ognahay carwooyinka meelaha mobilada lagu saalaan kale waxaa faa'iido laga raadiyaa $2 $1 0.5 wax la mid ah laakiin halkan $10 ayaa ku yeelanaysaa dukaanka ugu bronze haddii $9 waxaan ku yeelanaysaa teamkaaga iyo dadka kaa farcamane $9 ayuu kameriga kaa siinayaa sababta intaa kameriga wuxuu ku leeyahay madaxaaga ayay noogu yimaadeen adigu maadaamaad keentay adigu $9 baan kaa siinayaa silver hadduu kaarkaagu yahay $220 alaab joogta iibso kaarkaaga silver ayuu noqonayaa kameriga percentage imisaa ku yeelanaysaa 15% oo $100 kasta oo aad iibiso 15% ayaa leedahay 10% waxaa ku leedahay teamkaaga iyo farciisa waayo goolka kaarkayga hadduu yahay isaguna maxaa faa'iideeyaa $440
ayaa lagu galayaa kaarka goldiga ah waxaana faa'iido kamariga siinaya 18% halka tiimkeygii farciisa 11% uga siinayo isagoo aan qiimihiisa wax laga qaadin isagana wixiisa uu leeyahay kambaniga ayaa ku siinaya kamariga ku leedahay buu noqonaya marka hadduu kaarka gold uu yahay weekly isbuucii imis ayaan awoodaa inaan qaato ilaa $4 ayaan awoodaa inaan qaato kaarka silver hadduu yahay imise ayaan awoodaa inaan qaato ilaa $3,000 haddaba $3,000 dadaan qaadan way jiraan dad qaato way jiraan hadba waxay ku xiran tahay dadaalkaaga iyo shaqada aad qabato ayay ku xiran tahay waxaanu soo arki doonaa insha allah tacaala tusaale yar haddii aan kaarkayga uu silver u yahay aan la wadaago laba qof oo saaxiibadaya aan la wadaago iyaguna kaarkooda uu noqdo silver kambaniga maxaa ku leeyahay oo uu kambanigu iga siinaya ayaanu insha allahu tacaala isla arki doonaa kaarkayga silver hadduu yahay anigu kaarkayga waa silver 220 wiil laba qof aan la wadaaga asxaabteeda iyaga 220 kaarka ma iibsadeen kambaniga $8 ayuu siinaya mar walba dadkayga ay bataan waxaa badan doona lacagteeda mar walba lacagteeda ay badatana waxaa isbedeli doona darajada kambaniga aan kaga gelaya ayaa isbedeli doona insha allah waxaa sidoo kale saarki doonaa kaarkayga gold hadduu yahay ka waran isagana kaarka gold hadduu yahay halka qof adigu gold kaarka hadduu yahay laba qof oo goldiya iyadana aad keento kambaniga aad la wadaagto iyagana daawooyinka ay ku qancaan ay iibsadaan ay ku duceeyaan markay caafimaad ay helaan maxaa yeelay kambaniga waxaa nidhi xanuuna halis ayaa loogu caafimaada waana caafimaadkii bulshadana ka shaqeey oo duca iyagana ka hel kambaniga ha ku siiyo abaalmarin ha ku siiyo weye oo commissionkaagana ka hel laba qof oo goldiya baad keento min 440 kambaniga ka iibsaday $188 ayuu ku siinaya commission kambaniga isbuucla ayaana lacagta kambaniga loo qaataa isbuuc walba ee aad shaqaysato lacagtaada ku soo dhacaysa oo bilba lagulama sugayo marwalba dadka ugu bato waxaa badanaya lacagta qaadanayso star levelka ama kambaniga levelka ka gelaysa inuu isbedelaya waxaynu soo arki doonaa kambaniga levelada laga galo ayay kambaniga soo arki doonaa qofka markuu isdiiwaan geliyo waa 1 star bronze ama xirmada 110 hadduu iibsado waa 3 star xirmadan hadduu iibsado 220 waa 4 star 5 star qofku wuxuu ku noqonayaa isagii wixii ka farcmay inay 1200 iibina sameeyaan ayuu ku noqonayaa marka 7 star qofka duu gaaro 25 iiba isagii wixii ka farcmo dhan 25 ma badna waxa weeye 25 waxay noqonaysaa hadda saalahan kale hadii ay ka farcato 50 qofoodna qofku u iibay $100 waxa weeye waa $500 weeye bisha kale waa automatically 7 star geli kara way erisa waxaa lagu noqdaa aniga tiimkayga $100 inaan iibino ma badna haddii tiim aan haysan tusaalahaan kale waxaa iga farxma 100 qofood $100 bay iibiyeen bil walba $10,000 bil walba iibinanaa wey haddaan darajada noocaana soo gaari kambaniga muxuu siinayaa marka waxaa soo baxo dalxiisyo uu kambaniga soo saaro qofka darajada hadduu gaaro gelayo sidoo kale eristar qofka hadduu gaaro qofka muxuu ku guuleysanaya abaalmarin $10,000 ilaa $15,000 soo baxday baa jirta sidoo kalena wuxuu u aqoonsanaya kambaniga waxa loo yaqaan African share ayuu kambaniga ayaa igu leeyahay maadaama darajada tan aad soo gaartay halkan way ka sii daran tahay oo dadka bronze silverka iyo goldiga waxay ku xisaabtamaan $15,000 ilaa $20,000 ay kambaniga kaga xisaabtamaan meesha oo aan cararno waa halka kan uu kambaniga aan ka helayo commissionkayga uu ii dheeryahay lacag joogta ah oo kambaniga ka qaadanayo waya lacagta joogtadana waxay u dhaxaysaa 5,000 ilaa wixii ka badan bay sii noqonaysaa waya haddii aad diyaar u tahay inaad noloshaada bedesho kusoo dhaweynana insha allahu tacaala soo dhawow gacan fur kusoo dhawow isdiiwaangelintu $30 kaliya ayuu qofku bixinaya oo halkaas marbis uu bixinaya tababarada ayuu qaadanaya noloshiisa ayuu wax badan ka bedeli doonaa insha allahu tacaala anagana diyaar waxaan kula nahay noloshaada habka aad ku bedeli lahayd insha allahu tacaala dad badan oo noloshooda bedelana waa ay jiraan waxaan kula wadaagi doonaa insha allahu tacaala asxaab badan oo waxaa jira noloshooda bedela dalxiisa ku guuleysa Afrika iyo dunida idilba gaari hada jecel ay dadkan joogaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi